وحفصة علي حاجي وحكمت أهل كسليم مانت وحبريزن كرينا صومالي وإذن مانت World Refugee Day واي. I'm here to perform. magacaygu waa Ansad Rashaad Sheekh Cali waxaan ka soo qayb galay maalinta qaxootiga adduunka kuna hadlaya afka Soomaaliya kana socda ururka Isliigu oo taageersan Soomaaliya oo aad u taageeraya Soomaaliya dhammaan waan salaamay marsarabta ka soo qayb gashay World Refugee Day markaas darteed waxaan u imaanay maanta hidiyada dhaqanka Soomaaliyeed inaan soo muujino Soomaali waxay tahay inaan meesha ka muujinaa imaanay midda kale insha Allah Soomaali waxaan rajaynayaa inay midoodo bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo adeeq maxamed oo ku nool magaalada Nairobi waxaan u mahadcelinayaa Soomaalida Refugee-ka Nairobi oo Kenya xukunto marka hore waa in salaam meel kasta joogtaan marka xiga waa ku faraxsan aad iyo aad aan u faraxsanahay meesha ka soo qayb galkan aan ka soo qayb galay xafladan sidan u ballaaran sida aad u aragto maanta barnaamijkan haye magacaygu waa Xamdi barnaamijkan aad aan ugu faraxsanahay waxaan shuurteeda aad u kacsantahay marka waxaan leeyahay markasta dadweynaha inay ka soo qayb galaan ee taageeraan maxaad dareemaysaa markaad aragto dhalinyaro Soomaaliyeed oo calanka Soomaaliya ku labisan misana haddana hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ciyaaraya maxaa kugu soo dhacay wallahi aad baan ugu farxadeed ma soo koobi karo halkan ma soo koobi karo aad iyo aad u maasantahay ogaas adiga see u aragtaa barnaamijkan quruxda badan maanta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa leedahay Xuseen Mataan Xuseen Maxamuud Ismaan waxaan u arkaa in barnaamijkan barnaamij aad u wanaagsan maadaama maarta qaxootiga maalinta qaxootiga adduunka ay tahay shacabka Soomaaliyeed iyo bulsho badan oo kala duwan ay aad iyo aad maartay uga soo qayb galeen qof walbana maartay wadan walbana oo soo dhigayo hidaayad dhaqankiisa wax qabadkiisa calankiisa maadaama maartay anagu aan qaxootinimada maadaama aan wali aan ku jirno insha Allah maartay maalmaha soo socdo waxaan jecelnaa maartay wadamadeena inaan dib iskaga laabano anagoo maar dawladdeena wadankeena ku faraxsan aad iyo aad ma santahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Faaiisa Cabdi maanta aad iyo aad aan faraxsanahay xuurteedana lama soo goobi karo sidee u aragtaa marka aragta dhalinyaro noocaas u dheelayso oo Soomaaliyeed markii aad dareenkaadu kulli waxaan u maleynaa waa mid aad u kacsan laakiin adiga dareen ahaan see aad u dareemaysaa marka aad calanka buluuga adoo wadan kale wadankaadana joogo maxaa dareen ku geli karo wallahi bilaa dareenkayga maanta aad u kacsan yahay waan ku faraxsanahay inaan arko dhalinyaro Soomaaliyeed oo maanta calankeena Soomaaliya wato oo ku dheeyo balkii hidii dhaqankii soo bandhigeen oo dheelay aad ugu faraxsan walaal aniga Farxi Cabdinaasir oo ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo xalfadan oo Refugee Day-ga runtii Ilaahay baan maad iskale waan ku faraxsanahay maadaama aan dhaqankeena soo muujinayno runtii markaan arko dhalinyarada qabta calanka Soomaaliya aad ayaan ugu farxaa walaahi dhiigaygan u kacaa marka insha Allah Ilaahay sanadkan kale insha Allah qayb nagu garso walaal waan mahadsantiin magacaygu waa Aamin Cumar maanta dareenkayga zaid ayuu kacsan yahay maadaama aan arkayo dad Soomaaliyeed oo wataan calanka Soomaaliya because dhiigayga wuxuu maanta garaacayaa 100% bal aan ka gudubno wareysiyada dadweynaha Soomaaliyeed ee goobta ku sugnaa shucuurtooda ku muujinayay bal daawo hablaha iyo wiilasha quruxda badan ee Isliiwood oo maanta u taagan calanka buluuga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waxayna maanta ka qayb galayaan maalinta qaxootiga adduunka waxaana dareemaysaa markii indhahaadu ay qabtaan dhalintani magaca Soomaaliyeed halkani maanta uga qayb galaya maalinta qaxootiga watana calanka buluuga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ku qaadayo qeyro wadaninimo bal ila daawo wacdaraha ay goobta ka muujiyeen dhalintani faraxsanahay inaan maanta meeshan joogo meesha lagu xusaayo maalinta qaxootiga adduunka waxaan garanayaa dad badan oo qaxootiga inay dadkoodii ay ka maqan yihiin oo dadkooda isla jooginin familyo badan oo gaar ahaan Soomaalida oo kale waxay kale aadeen daafaha adduunka marka maanta waxay noo tahay maalin weyn anaka Isliiwood in maanta aan kala dabaaldegayno dadweynaha adduunka maanta qaxootiga adduunka waa maasantiin السلام عليكم magacaygu waa Asad Ali Ahmed you can call me Triple A maanta halkan waxaanu imaanaynaa ka qayb qaadano World Refugee Day aad iyo aad u faraxsanahay waxaan u taaganahay magaca Soomaalida inaan kor u qaadno haddaan nahay Isliiwood band runtii jawiga maanta waxaan ku tilmaamo ma aqaano aad iyo aad u faraxsanahay dadka celebration ay sameynayaan qaybteena uga jirnaa
ciyaaraha kala duwan ee Afrika ayaa halkan lagu hayaa annaga qaybteenan ka qaadanaynaa waxaan la xaynaa calamadii buluuga runantii aad iyo aad aan faraxsanahay. This is called Sami. He's in Nairobi University right now in a Refugee World Day that people are celebrating. So I want to interview him. So just hi. Hi. My name is Sami and I work with Filmate as a communication officer. Today we are here at Nairobi University to celebrate World Refugee Day 2013. Like as you see, we have so many agencies and we are part of the agencies just to support the humanitarian work that we are doing in Dadaab and in Kakuma. And just take time out to say hongera to our refugees, you know, and just be with them today and celebrate their lives, you know. These are people who have fled their homes due to conflict, due to war, and it's a good feeling to just come together, just put all the assignments that we have in the offices aside and just to say thank you to these wonderful people. Yeah. And so how do you see that you wake up early in the morning, it's still raining, it's cold even. So how do you see the situation? I mean, I think this is a very happy day and fun goes beyond nature. So I don't mind. You know, the weather is okay. It's perfect for the day. Yeah. I think we are really enjoying. Thank you. Yeah, I do. Yeah. Okay, thank you. Status. Sorry, I missed it. Status. How do you see the World Refugee Day? Are you enjoying? Yeah, it's great. It's a really good day. There's a lot of good people, a lot of good organizations. It's a good start to the day, definitely. Are you really enjoying? Yeah, definitely. I think so. Are you happy with this situation? Because it's raining, too raining. And today is a World Refugee Day, so give your comments. Well, I think the rain is unfortunate, but we'll still have a good day, I think. Okay, thank you. Okay, thanks very much. faraxsanahay meesha waxa ka socda maxaa la lahaa dabaaldeg Soomaalida wadamo walba ka imaanayaan waa la faraxsan yahay maalinta maxaa la qaxootiga qof walba oo jooga Soomaalida waa hataa anaga waa joognaa groupkeena Stewood waa ku faraxsanahay inaan joogno halkan qaxootiga dhameesha iskugu imaadeen soo markaa waa mahadsantiin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maalinta qaxootiga adduunka oo halkan dalkan Kenya wax badan Soomaalida qaxooti ay ku ahaayeen aan uga soo qayb galnay. Waxaan u mahad celinaynaa dalka Kenya Soomaalida sida wadankooda uga soo barakacday iyo dhibaatadii ku dhacday sida la ogyahay waxay tageen wadamo fara badan sida ay Kenya noo soo dhaweysay ama aan nabad ugu haysano ama ugu nasanay oo ka wadamada Afrika oo dhan uguma nasanin wadamada qaar waa aragteen dadkeena lagu dilaayo wadooyinka lagu jiidayo la gubaayo ganacsigoodii laga faramarooqsanaay iyo dhibaatada ay ku noolyihiin runta markaan ka hadalna Kenya waxay noo noqotay like a motherland sida wadankeena hooyo kale ay noo noqotay waxay way iska jiraan oo qofkii wadan shisheeye jooga dhibaato uu la kulmaaya laakiin runta markaan ka hadlayno indhaha wax laga qabsadaan ahayn 20 years and above Soomaalidu waxay joogan dalka Kenya dib kuma qabaan ilmihii lagu dhalaa ku soo koray wax ku bartay ganacsi ku haysta Soomaaliya iyo maanta iyo Kenya isku kamid waan dhahayna waxaan aad ugu mahad celinaynaa dalka Kenya oo intaas hoosta u noqotay oo maxay soo dhaweeyay dadka Soomaalida si nabadgelyo ay ugu nool yihiin ganacsi ay ku haystaan teeda kale waxa ka qayb galaya Somali Culture Dance Group la dhaho Stewood matalayo aadaan ugu faraxsanahay waa group aad qurux badan waa group dhalinyaro oo ugu talagalay inay u kacaan ay muujiyaan sharafta Soomaaliya iyo calanka Soomaaliya ay kor u qaadaan Dibta kula wadaagta
loodiyaa jira marwa wax ku dhibin dabca loo dhameeyo naxariista lagu dhalay ma wax loodiyaa jira daminta asluubtale xubnahaad ku dhaawice eedhiika kaa gelay hadmuu kaa dhammaan dimbilihii aad shidatay dabkoodii markuu dhiilay adihiisuu kumaa dhicin oo dhaawacmaan adihiisuu kumaa dhicin oo dhaawacmaan noqon daminta asluubtale xubnahaad ku dhaawice eedhiika kaa gelay hadmuu kaa dhammaan appreciate the strength and resilience, the challenges, the passion and the compassion of people who lost them and come together to give a role for protection for people who live as a Christian. Naomba kualika Red Lion Society ambaye ni Wakongolese pamoja na Warwandese ambao wanatoka maeneo ya Kangemi ili wafike mahala hapa ili kuweza kutupatia tumbuizo lao. Ni yangu matumaini kwamba mtamakinika. Hata kama nilivyosema hapo, na hiyo yote inaweza kuwezekana kama siku ya leo wewe mkimbizi unaweza kuamua kutembelea ofisi yetu iko mahali hapo na usajiliwe kama mkimbizi ama usajiliwe kwa mtandao. Na mtandao yetu ni www Morning. We are Somalis. We are representing Somali culture as we call Dancho. So, and some few words from us.
بسم الله الرحمن الرحيم أنغو قحينا أنقبادنا هايسن UN وقالتو أقرينا سيئ أمان بانو هلايو أباد بانو هاينا ألا مهن أعدنا أيامه نصومري وإلونا أوجد ألا UN وعنا صومالي أو إدين ودداش UN با هو أفريقيا كتغي آذينا أمريكا يكوى آذينا أمريكا يقارت لمدوا أيها أفليا ذلك إنا كالوفان أيها نجونا هلك أن كسبنا الله يوعنا يا أبا يا أنا Thank you very much, Somali traditional dance. Thank you very much. Kindly appreciate them. Thank you very much. That was the Somali. guntiga gabagabadii barnaamijkani quruxda badan ee dhalinta Isliiwood sida aadka uga dhex muuqatay ayaanu ku soo gabagabaynaynaa